shirkan golaha wasiirada Soomaaliland ee maanta oo ah shirkii ugu horeeyay ee golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qabsoomay gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaana shirkaasi shir gudoominaya madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay arrimo door ah oo ay ugu horeysay daarinta golaha wasiirada Soomaaliland iyo sidii golaha wasiirada ee cusub ay u fulin lahaayeen ballanqaadka uu xisbiga talada dalka haya ee kulmiya uu ku galay doorashadii madaxtooyada waxaa sidoo kale lagaga hadlay shirkaasi qodobo kale oo muhiim ah markii laga soo baxay shirkaasi ayaa waxa warbaahinta uga warramay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xuseen Aadan Ciga Xuseen Deer waxaana uu sharaxay qodobada lagaga wada hadlay shirkaasi isagoo ka hadlaya arrintaasina waxa uu yiri kulankii ugu horeeyay ee ay yeeshaan golaha wasiirada ee xukuumadda cusub oo uu shir gudoomiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa lagaga wada hadlay arrimo dhowr ah kulankaas waxa ka qayb galay 31 xubnood oo kamid ah 32 xubnood ee golaha wasiirada kuwaas oo ah 23 wasiir iyo 9 wasiir ku xigeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu kal fadhiga ka sheegay in xukuumaddan cusub hiigsigeedu uu saldhigu yahay ballanqaadyadii xisbiga kulmiye iyo barnaamijkii xisbiga uu ololaha ku galay iyo qorshaha horumarinta qaranka ee labaad National Development Plan Phase 2 kulanka ugu horeeyay oo qaatay muddo saacad ah wuxuu ahaa kulan isbarasho iyo isxoguraysi madaxweynuhu wuxuu si gaar ah hoos uga xariiqay muhiimadda ay leedahay muwaadinimadu wadajirka ummadda iyo isagoo golaha faray in juhd iyo dadaal midaysan loo galo sidii ummadda loo midayn lahaa loogana saari lahaa xanaftii ay reebtay tartankii ololaha doorashadu haddaba fadhiga koowaad ee uu yeeshay golaha wasiirada cusub maanta oo ay taariikhdu tahay 16 bishii 12 2017 uuna shir gudoominayay madaxweynuhu waxa lagu go'aamiyay qodobadan soo socda qodobka koowaad waxa dhammaan golaha wasiirada lagu dhaariyay inay kitaabka quraanka ah inay ilaashaan sirta golaha wasiirada iyo sirta qarankaba qodobka labaad golaha wasiiradu waxa madaxweynuhu uu faray inay diiwaan geliyaan dhammaan hantidooda ay gaarka u leeyihiin hantida guurtada iyo tama guurtadaada qodobka saddexaad in dhammaan golaha wasiiradu ay keenaan xogta shakhsiga ah ee sharcigu ku waajibiyay ee looga baahan yahay oo dhammaystiran qodobka afraad in la qabto kulano joogto ah oo la xidhiidha qaabka wada shaqaynta iyo xoojinta shaqada ay wasaaraduhu qaranka u hayaan qodobka shanaad in dhammaan gobollada dalku ay u sinaan doonaan cadaaladda iyo horumarka iyaguna ay xoojiyaan gobollada laftoodu wax soo saarka iyo dhismaha qaranka qodobka lixaad maadaama ay wasiiradu yihiin mas'uuliyiin qaran oo loo igmaday xil qaran waa inaan loo arag oo aanay ummaddu u arag wasiir qolo mid qoys iyo mid qabiil toona sidaas darteed waxaa reeban in wasiiradu ay ka qayb galaan casuumado beelaysan oo wasiirka ay beeshiisu si gaara ugu maamuusayso wasiirku wuu ku qayb geli karaa casuumado lagu maamuusayo ama lagu hambaleynayo golaha wasiirada oo ay saaxiibadiisa kale ay ka soo qayb galaan laakiinse waxa reeban in wasiirku uu ka qayb galo xaflad beeshiisu ay qabanayso isaga ku maamuusayso sababtoo ah wasiirku waa wasiir qaran mid qolana maaha qodobka toddobaad ee ugu dambeeya ee uu madaxweynuhu golaha wasiiradu shirkii uu gudoominayay la isla gartay la go'aansaday waxa weeye in xafladaha xil wareejinta ee mas'uuliyiinta cusub ay kala wareegayaan xilka qaranka mas'uuliyiintii xukuumaddii hore ay reeban tahay in lagu qabto meel ka baxsan xarumaha dawladda shirkan golaha wasiirada Soomaaliland ee maanta oo shir gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ahaa shirkiisii ugu horeeyay ee uu la yeesho golihiisa wasiirada gaar ahaan golaha wasiirada iyo ku-xigeenadooda tani intii uu magacaabay xukuumaddaasi cusub ee uu soo dhisay
axmed saki daahir xasan iyo cabdilaahi cali suudi warbaahinta qaranka Soomaaliland gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.